bismillah. guud ahaan haweenku marka ay qaangaaraan waxay isku arkaan qoyaankaasi oo badanaa ah mid normal ah wuxuuna ku kala duwan yahay qoyaankaasi hadba xaaladda ay ku sugan tahay. hadday noqon lahayd gabar u diyaarsan inay uur qaado ama ku aadan waqtiga ovulationkeeda. ovulationkana waxaa loola jeedaa waqtiga gabadha ugxaanteeda lasoo daayo, sidoo kale waqtiyada gabadha ay uurka leedahay, waqtiga gabadha ay galmada sameyso iyo waqtiga gabadha ay gabowdo amaba dhalmada ay joojiso. hadba marka waxay ku xiran tahay xaaladda gabadha ay ku sugan tahay iyo sidoo kale xaaladeeda caafimaad. waxaa badanaa ay gabdho badan u haystaan qoyaankaasi kalarka uu yahay iyo cufnaantiisa ama culeyska uu leeyahay, hadduu yahay wax adag, hadduu yahay wax jilicsan, hadduu tiro badan yahay, hadduu yar yahay. badanaa haweenka badankood kuma baraarugsano. waxaa rabaa marka in aan videogan idinkula wadaago noocyada uu leeyahay qoyaankaasi lagu arko xubinta taranka ee haweenka iyo waxa uu ka turjumayo, ma wax normal ahba mise waa wax ay sababtay xanuuno caafimaadka la xiriira. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. waxaan marka hore ka bilaabeynaa kalarka koowaad ee loo yaqaano kalarka jaalaha iyo cagaarka yar ee isku jiro. waa kalar jaale iyo cagaar xigeen oo kala ah. kalarkaasi badanaa boqolkiiba 50 calaamado kale lama xiriiraan oo gabadha ma dareento in calaamado kale intay la xiriiraan ay ku dareemeyso xanuuno kale. kalarkaasi wuxuu ka turjumayaa in ay jirto infection. waxaa loo yaqaanaa cudurada ay ku kala gudbaan galmada STI sexual transmitted infectionska ayaa badanaana sababo. waxaa badanaa gabadha u raacsan markii ay xaaladeeda sii adkaato ama ay sii darsato cuncun, ur. sidoo kale gabadha marka ay xaas tahay ay galmo sameyso in ay ku dareento xanuun. badanaana gabadha marka ay isku aragto kalarkaasi jaalaha ah waxaa lagula taliyaa in ay qaadato boomatooyinka loogu talagalay infectionska inay yareeyaan amaba dilaan. ayada iyo xaajigeedaba ay isla qaataan ku dhawaad muddo isbuuc ahna aysan isku dhawaanin amaba aysan sameynin wax galma ah. waxaan u gudagalaynaa kalarka labaad waa kalar brown ah ama kafeey ama gaduud yar. kalarkaasi badanaa waxay ku xiran tahay hadba xaaladda gabadha ay ku sugan tahay. tusaale ahaan gabadha marka ay caadada usoo dhowdahay intaysan ku dhicin ka hor kalarkaasi ay isku aragtaa, taasina waxay ka turjumaysaa calaamad digniin ah oo u sheegayso in waqtiga caadada ay soo dhowdahay. taasina waa wax normal ah. marmarka qaar gabadha marka ay uurka leedahay ayadoo uur leh ay wax isku arki kartaa kalarkaasi. kalarkaasi kafeeyga ama gaduudka marka isku aragtana waxay ka turjumaysaa in ay jirto xaalad emergency ah oo ku sugan dhanka ilmaheeda amaba in ay soo dhicsoobeen amaba riski ay ugu jiraan intaba. xaaladaasina gabadha waxaa lagula taliyaa inay la xiriirto dhakhtarkeeda. mararka qaar gabadha waxay isku aragtaa ayada oo mar hore ugu dambeysay caadadii amaba dhalmo joojisay oo caado aanan u imaan in ay isku aragto kalarkaasi gaduudka ama brownka ah. taasina waxay badanaa la xiriirtaa amaba marmarka qaar ay dhacdaa in uu jiro kansarka minka afkiisa ku dhaco. sanad ka hor caado ugu dambeysa oo kale inay isku aragto gaduudkaasi oo kale. kalarka saddexaad waa kalar cadaan culus. marka aan leeyahay waxaa ula jeedaa kalarkaasi waa cad kareem oo kale ah, isla markaasna aad ayuu u culus yahay oo gacanta markaas isku dhexeyd oo kale waa wax culus oo sida kareemkii oo kale ah. badanaa kalarkaasi wuxuu ka turjumayaa inuu jiro waxyaabaha loo yaqaano yeast infectionska. dumarka way u badan yihiin inay isku arkaan. badanaa waxaa ka dareemeysa oo kale
dharka hoosta laga xirto sida nigisyada oo kale markaa iska siibtid oo kale inaad ku aragtid cadaankaasi badanaana wuxuu dhacaa gabadha normally way u leedahay yistiga fajinaha waa laga helaa laakiin markuu overgrowth sameeyo ama tiradiisa aad u badato wuxuu keenayaa xaalad caafimaad ah xaaladahaas oo kale aan isku arkaa mana dareemaan gabdhaha badankood ama umaba aragto inuu yahay wax infectionis ah kalarka afraad waa kalar grey ah ama grige kalarkaasna sidoo kale wuxuu ka turjumaya xaalad caafimaad oo jiro bacterial infectionska ku dhaco xubinta taranka haweenka badanana waxaa la xiriiro calaamado kale sida cuncun maxaa la dhahaa qoyaanka oo badan infection waxyaabaha lagu garto oo dhan infectionska qodobka ugu dambeeya waa kalarka ama kalarka cadaanka biyaha ah ee clearka ah nadiifka ah kalarkaasi waa kalarka normalka loogu talgalay haweenka inay lahaadaan waxaan lagu gartaa inuu yahay kalar nadiif ah isla markaasna uusan lahayn wax ur ah wuuna jijiidmaa badanaa guud ahaan 5 kalar ay leeyihiin amaba ay samaystaan qoyaanka xubinta taranka ee haweenka waa 5taas kalar oo aanu soo sheegnay sida jaalaha iyo cagaarka isku jira gaduudka kafeega iyo gaduudka cadka adag gareyga iyo cadka biyaha ah ee nadiifka ah haddaba kalaradaasi haddaa isku aragto maxaad kaga hortagi kartaa amaba iskaga daweyn kartaa marka hore markii la daaweynayo infectionska gabdhaha ku dhaco laguma degdego waxyaabaha daawooyinka tooska ah waxaa la sameeyaa waxyaaba natural ah oo gurigaaga aad ka helaysid qodobka ugu muhiimsan ee gabadha kaga hortagi karta amaba ay ku yareyn karta infectionskaas waxaa ka mid ah in ay ku dadaasho nadaafadda xubintaasi nadaafadda marka aan ka hadleynana way siyaabo badan tahay tusaale ahaan weyga gabadha ay iskaga nadiifinayso kaadida amaba caadada amaba marka ay galmo sameyso dhaqmada ay dhaqayso xubinta taranka waxaa la rabaa in ay u dhaqdo hore inay ka bilowdo ay gadaal u wado ma aha inay gadaal kasoo bilowdo ay hore usoo wado taasi waxay zaa'idinaysaa janiska infectionka qodobka labaad oo zaa'idka gabdhaha Soomaaliyeed ugu badiyay infectionska waxaa waaye isticmaalayaan waxa loo yaqaano gorgorada waxay zaa'id u badisaa ama janiska transmissionka kor u qaada xubintaas sababtoo maradaas waxay ka samaysan tahay waa nylon maro maxaa la dhahay aad ay u fududahay in ay sii gudbiso bacteriada iyo infectionska waaye waxaa habboon marka in aad xiratid dharka cottonska ama dharka suufka leh haddii aad googarad xiranaysidna in aadan googarad keligeed aada xiranin oo hoosta aad ka xiratid even haddaa guriga joogtid haddii aad guriga joogtid inaad nigis ku xiratid oo cotton ah amaba aad iska dhaaftid intaa guriga joogtid aadan xiranin sidoo kale waxaa sameyn kartaa oo kale in aad yareysid saabuunta dharka ama saabuunta korka loogu talagalay in aadan xubintaasi aadan ku dhaqin catarka iyo waxyaabaha carfaayana sidoo kale meesha sita aadan la aadin taasi waxay sababaysaa in bacteriyadii normalka ahayd ee loogu talagalay xubintaasi in ay baaba'do kala badnaan uu meeshaasi ka dhaco janiska infectionkan uu meeshaas ka bato marka waxaa jiro waxyaabo qaas ah oo medical caafimaad ahaan ah loogu talagalay xubintaasi in lagu dhaqo mar walbana waxaa wanaagsan inaad inta aad karaankaaga ay yareyn kartid productyadaasi ee qaybta hoose loo isticmaalo inaad yareysid qodobka ugu dambeeya waxay tahay in aad badsatid biyaha liinta sidoo kale apple vinegar wax la dhaho waxyaabahaasi oo kalena waxay sababayaan ayaga laftirkood in ay yareeyaan bacteriyada janiska ay meeshaasi kuga yani ugu weynaan lahayd waad mahadsantiin asxaabteeda qaaliga ah waxaan rajeynayaa inaad mawduucaaneti aad ka fahamteen waxyaabo badan oo kaa qarsoona mawduucyada noocan oo kale dadka badankood way ka xishoodaan ma la sheego laakiin waa wax u baahan in gabar walba ay ogaato marba hadday gabadha soo qaangaarto in ay taqaano 5 kalar noocyada ay kala yihiin waxyaabaha ay ka kala turjumayaan iyo gabar walba
oo Soomaaliyeed taasina waxay u baahan tahay in aad mar walba aqoonteeda adiga aaraadsid waana rajeynayaa in aan kula wadaago mawduucyada sidaas oo kale ah ee muhiimka u ah gabdhaha Soomaaliyeed in aan idinla wadaago insha Allah waa mahadsantiin mar kale والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.